بسم الله. السلام عليكم صاحبي الميش أن جوجنا ودار السلام أو طبعا كميدة meelaha ugu quruxda badan Soomaaliya oo idil magaalada Muqdisho duleedkeeda degmada Daynile ayay ku talaa Dar es Salaam marka xafadan Dar es Salaam oo dabcan aan dhihi karno waxay xitaa tahay magaalo waxa maanta aan ku joognaa koox saaxiibaday ah oo ay kamid tahay gabadhan yarta marka dabcan meeshan waa meel indhaha u roon oo soo jiidasho leh waqtiyadan oo kalena in la yimaado xilliyada galbi oo kalena aad bay u wanaagsan tahay dabcan dhowr bilood ka hor bay ugu dambeysay halkan ay yimaado laakiin maanta iyo markale ii suura gashan inaan imaado keligay ma ahan wala la socdaa qayb kamid ah saaxiibaday ayaa ila socda oo dabcan kamid ah dadka halkan yimaaday waxa kamid ah dadka ila socda Amira oo iyadoo halka muuqaal ku duubaysa طبعا مقالة يدوي سيدة يا صاحبة يدوب مركا ميشن وميل آديات وشدنا وقرح بدن ضدكم أنت بدن محج عليهن هنا ميلها نكلمة حلاقي وين دركتان قيب كم دتك أو هالكن يمانية وتعلم كسومالي مركا حكم دكها سوكله ويعلم كسومالي وتان مركا طبعا دتك لو فرق بدن هالكن ويجوجان مانتا حيش ميش أنا معي أيا كدون sababtoo ah waxaan imaadey meel aad duugeedu u degan yahay oo dad badan aan joogin sidoo kale saxmaduna ay ku yartahay roob yar da'aya oo aad qurux badan xilliga roob ayaa dabcan Dar es Salaam sidoo kale waxaan rabay inaan idin tuso meelo ayaa lagu soo kordhiyay oo haatan la raba in la furo meelaha la furay Dar es Salaam kamidka ah ayaan idin tusi doonaa hadii alla ka dhigo meelaha haatan dadku ay in badan rajeynayaan in lagu soo kordhiyo beertan weyn ee Dar es Salaam ku dhaxtaal waxa kamid ah halkan ayaa kamid zoo halkan zoo waxa dabcan la rabaa in lagu xanaaneeyo xayawaanka ujeedanaya xaaska iyo sidoo kale xayawaankan xaaska iyo goronyada oo kale baa la rabaa in halkan lagu xanaaneeyo inta oo kaliya ma ahan halkan qaybo kala duwan oo xayawaan ah ayaa loo furi doonaa goordhow sida ay marka ay ku qoran tahay qaar kamid ah boorarka oo aan idin tusi doono hadii ay suura gasho qaybta kale aad u jeedana kamid ah qaybta libaaxyada dhawaan firo waxa lagu talagalay libaaxyada in loo xanaaneeyo sida ay ila tahay oo dhawaan ayaa lagu soo kordhin doonaa way badan yihiin waxa jira qaybo kale oo lagu talagalay in sida qaybta oo kale aad arki kartaan ama idin muuqan karto qaybta abjidaan waxa lagu talagalay qaybta korowga iyo daanyeerka ayaa ku qoran qayb kale oo cusub oo ayada lagu soo kordhin doono beertan Dar es Salaam marka beerta Dar es Salaam waa dabcan meel dhameystiran marka loo fiiriyo meelaha kale marka dadku ay u damaashaa tagaan oo magaalada Muqdisho kamid ka ah marka halkan ayaa ay dadku aad u jeclaan lahaa inay yimaadaan inkastoo ay aad uga fog tahay magaalada Muqdisho marka loo eego dhalinyartuna inta badan aysan u suura gelin imaanshaha halkan marka laga soo tago maalmaha xurriyada iyo sidoo kale maalmaha ciida hay'ashee meeshan waa meel dabcan aad u diyaarsan oo aad looga baaran degay inay noqoto meel aad u qurux badan isla markaana waxyaabo fara badan aad ku arki karto waxyaabaha la yaab kale beertan laga heli karo ama aad ku arki karto waxa kamid ah boorarka wacyigelinta ah ee marka la suray meel kasta walaal tuko inta aan lagu tukan marka waxay kamid tahay boorarka uu kamid yahay boorarka wacyigelinada ah ee meel kasta oo beerta kamid ah aad ku arki karto marka geedo marka kala jaad ah ayaa sidoo kale halkan ku yaala waxaan idin geyn doonaa geed qurux badan oo aad iyo aad soo jiita xaqiiqatan oo aad dibba u wixii siin jireen lamaanayaasha jecel marka waa ubax aad iyo aad u qurux badan oo gaduudan ubaxan ayaa kamid ah waa ubax gaduudan oo aad u qurux badan dabcan sida ku muuqataba marka saaxiibo badan oo dabcan saaxiibaday kamid ah ayaa laga yaabaa inay jecleystaan ubax noocan oo kale oo aad u qurux badan oo beerta ku dhex yaala beerta Dar es Salaam marka aad u qurux badan yahay ubaxo soo jiidasho ayuu leeyahay oo waa qanciyay anigu dabcan sida uu yahay marka waa asigoo badan heli kara aad u qurux badnaan lahayd